بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada xalqad cusub iyo insha Allah BCY TV. xalqadan oo aad u gaaban insha Allah باذن الله الكريم waxaan ku eegaynaa hadal runtii yani farxad gelinaya qof walba oo muslina oo maqla. hadalkaasi waxa weeyaan sanuxariru Falastiin mithla ma hararna Azerbaijan. hadalkaasi waxa uu ciwaan u yahay khudbad uu jeedinayo madaxweynaha wadanka Turkiga. wax macnaheeduna waxa weeyaan sanuxariru waxaanu xorayn doonaa insha Allah Falastiin ayaan xorayn doonaa mithla ma hararna sidii aan u xoraynay Azerbaijan wadanka Azerbaijan aan uga xoraynay wadanka Armenia. hadalkaasi soo jiidashada leh farxadda gelinaya qof walba oo iimaan qalbigiisa ku jiro ayaa maaragtay ciwaan looga dhigay khudbadan uu jeedinayo madaxweynaha wadanka Turkiga oo uu jeedinayo xisbigiisa oo dhacday maxaan ku dhahdaa muddo imika laga joogo yani dhowr saacadood 3 saacadood meelaha laga joogo ayay dhacday khudbadaasi. wixii aynu ka turjubi karno insha Allah ayaynu turjumaynaa waana soo gaabinaa. hada wabillahi tawfiiq. waynu eegaynaa falyatafadal mashkuuran. madaxweynaha oo la hadlaya xisbigiisa ayaa hadalkan odhanaya. hadalka oo luqadda carabiga maaragtay xagga hoose lagu jiro naxnu qaadibuun waanu caraysanahay buu yidhi bishiddatin xoog baanu u caraysanahay waxasiinuun waanaanu murugaysanahay tijaahi dowlata alisraa'iil irhaabiya dowladda irhaabiga ah ee yuhuudda daalimada ah ayaanu maaragtay ka murugaysanahay waxa ay samaynayaan. Zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz. Türkiye'nin bu konudaki tavrı tamamen ilkesel. mowqifka dowladda Turkigu waa cad yahay. cidna waxba u qarin mayno. Dün Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini sidii aanu maaragtay u xoraynay Azerbaijan oo aanu maaragtay uga dulqaadnay dulmigii ayaanu sidaas oo kale ayaanu markaasi Falastiinna aanu uga qaadi doonaa dulmiga insha Allah. hangi şevkle desteklemişsek bugün Kudüs'te ve Filistin şehirlerinde yaşanan zulüm اليوم أيضا نتحرك مانتا أيانو دقاقينا بنفس الشفف بوجه الظلم الذي يحمل في فلسطين والقدس. سيانو مارك وقفيدنو ظلمي قالو قيسانيو ولا لها فلسطين تا يو قدس. zulme karşı da aynı hissiyatla harekete geçiyoruz. Nasıl izin vermemişsek bugün de سيدي ومثلنا فعلنا هناك سيدي أنو تاس كسميني هوري أو أنو كسميني ماركتاي أيانو إمكنا سيدي بانو يلينا معناها سيدي أنو ماركتاي تديوغي دول بيجي دباتدو هاي ستاي وكالي أنو قاقادو. Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan ellere aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Daha geçen yıl Libya'nın bölünmesine nasıl müsaade etmemişsek mana saamaxayno ama ma ogolaanayno inuu dulmigu sii socdo. herkesin sırtını döndüğü Somali'nin kaderine terk edilmesine nasıl göz yummadıysak sidii aanu maaragtay wax uga qabanay oo kale sida Soomaaliya oo kale iyo wadamadii la midka ahaa. Bosna'da hünharca işlenen vahşete nasıl sesimizi yükselttiysek yani wadamo badan baa Turkigu wax ka soo qabtay waan yara qabanaya. wadamadaas waxaa ka mid ah Libiya, Soomaaliya, Azerbaijan. wadamadaas oo dhan buu soo xusaya oo maaragtay leeyahay. marka wuxuu ku soo gabagabeynayaa alyawma aydan lan nasmut maanta ma aamusayno. arkaysaa oo kama aamusayno waxa ay u geysanayso dowladda Israa'iil. bugün de tüm dünya görmezden gelse bile
İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. İsrail'in döktüğü kanlara, yaptığı saygısızlara sessiz kalarak veya açıkça arka çıkarak ortak olanlar cid walba oo markaasi maaragtay ka aamusta ama raalli ka noqota arrintaasina yani waxa weeyaan iyaga ayay maaragtay macooda yihiin oo dulmiga ayay maaragtay la wadaagayaan ama ay la wadaagayaan tacadiyada ay u geysanayso dadka muslimiinta ah. هذا وبالله التوفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.